Faker iyo hami dheer ayuu ku rumeeyey riyo in badan ka dhex guuxasay maalmo iyo habeeno badan oo noloshiisa ka mid ah. Eric Beta waa nin asal ahaan ka soo jeeda waddanka Faransiiska, wuxuu hal dhigiisu ahaa qashin in ka mida waa hanti nin kale leeyahay. Waxa uu biyaha dhexdooda ka dhex qotomiyey hotel dalxiis oo aad u qurux badan, indhihii arkana ay la ashqaraarayaan, qof walibana ku hamiyayo inuu waqti ku qaato. Waxa uu si cajiib ah oo aad la dhakafaarayso daawade in hotelkani uu ka samaysan yahay cagadaha biyaha lagu cabo, waana hotel leh adeeg dhammaystiran kaasoo ku dul sabaynaya biyaha jasiiradda ku taala waddanka Afrika ee Ivory Coast. Waxaana uu leeyahay 2 barkadood oo dabaal ah iyo maqaaxiyo cunto, guryo hurdo iyo weliba baarar lagu caweeyo. Dalxiisuhu wuxuu ku nastaa dusha sare ee harada ku taala Abidjan oo ah xarunta dhaqaalaha ee galbeedka Afrika, wuxuuna ka samaysan yahay in ka badan 800 oo kun oo caagado ah iyo qashin uu ka soo arooriyey xeebta. Mashruucan la yaab kale ayuu u sameeyey si uu uga faa'iideysto dalxiisayaasha, maadaama naqshadiisu ay tahay mid la yaab leh soona jiidatay dalxiisayaasha, waana mid aan horay loo arag. Waxaanu habeenkiisaha lagaga kirayaa hotelkani $100. Hotelkani wuxuu leeyahay koronto ku shaqeysa cadceedda, wuxuuna kaabiga ku hayaa caasimadda Ivory Coast, wuxuuna soo jiitaa 100 dalxiisayaasha oo dalka dibadiisa iyo gudihiisaba ka imaanaya. Hotelkani mid lagu dhaqaajin karayo biyaha korkooda sida doonta oo kale, marka dadka soo booqda ay rabaan inay arkaan meelo kala duwan. oo sidoo kalena wuxuu milkuuluhu xusay in ay la rari karo haddii ay dani timaado. Daba daawade ma leedahay adigu aqoontii iyo maskaxdii looga faa'iideyn lahaa dalkeena qashinka iyo biraha hadhaaga ee meel kastaba daadso aan adiga wax lacaga kugu fadhiyin, dadkana uga faa'iideyn lahayd, adna aad faa'iido uga samayn lahayd dhaqaale fara badan adiga oo dalkaagii jooga hooyo oo aan meel la uga dhaqaaqin, maskaxdaada iyo muruqaagana maalayaba. waa anigoo ah Cabdixakiin Maxamed.